siyaasadda bariga dhexe ee la rabo waa maxay siyaasatu tatbiic waxaanay jaraa'idku imika inoo qoraan ee la bedelayo wajigay yeelanaysaa inaynan inagu waxba ku darsan baa la qaatay aan kelmad idhaahda iyagu ay yidhaahdeen Alan Austin waa la taliyihii siyaasiga ahaa ee Ronald Reagan ayaa wuxuu ku yimi Kuwait ayuu ziyaara ku yimi dabeetana muxaadara buu ka hadlay muxaadaradii markuu jeediyay baa su'aal la weydiiyey waa Kuwait buu dhex jooga dabeetana lecture buu jeediyey lecturekiisa kadib baa su'aal la weydiiyey xawla almustaqbal السياسي لدول الخليج baa la yidhi ka war mustaqbalka siyaasiga ee duwalka khaliijku siduu u ekaanaya weedhiisi intuu hadlay buu wuxuu yidhi Israa'iil buu yidhi waxay noqon doontaa cudwi ama xubin ka mida majlis tacaawun alkhaliij alcarabi buu yidhi hadda ma aha majlis alcarabiga iyo waxa waa Israa'iil waa nin Maraykan ma aha nin Maraykan oo caadi ah waa mustashaar kii arrimaha siyaasiga ee madaxweynihii dhammaayay hore tagay xaquu ka hadlaya ma aha Maraykan iyo meelahaasi fi daakhil Kuwait buu muxaadara ka jeedinaya dadkiisii muxaadarada dhageysanayay ee mustamiiciintii akaarimta haba su'aal markay weydiiyeen ka waran mustaqbalka khaliij alcarabi ayuu wuxuu leeyahay Israa'iil waxay cudwi ka noqon doontaa majlis at-tacaawun liduwal al-khaliij al-arabi dabeetana buu yidhi majlis tacaawun duwal al-khaliij wuxuu Israa'iil korkeeda saari doonaa حماية أراضيها من التهديدات العسكرية لدول المجاورة بويد إسرائيل بويد إنه إلى لسردوك دول الخليج عيدا هان أو إكا إلى لسو كوان شار كيدا كسور وريقيا هذا هي سياسة نظام عالمي جديد وحر رادين يواكا واحد كقفل النظام العالمي الجديد وحر رادين يو نائب الرئيس الأمريكي مركي مؤتمر كي مدريد لفرية أيو هضلي wuxuu la hadlayaa carabtii meesha isugu timi kalimatu iftitaax buu leeyahay carabta waxa la rabaa inay la heshiiyaan Israa'iil kalimatu iftitaax ra'iiska ama madaxweyne ku xigeenkii Maraykanku ku furay ma taqaana bimil ifami buu intuu hadlay buu wuxuu yidhi nimankiinan carbeed dhammaantiin mahzuumiin baa tiin buu yidhi yani waa inay isdhiib dhammaantiin waa jabteen buu leeyahay waa kelmadii mufaawadaadku ku bilaabmayay ee uu jeedinayo maxay نائب الرئيس الأمريكي وحين لاني باهل كعصبة لشيء نظام العالم الجديد أما مثلا شرق الأوسط كعصبة يسدو ويكانيه مفاوضات بالله لقى للفلسطينية وكانوا عين كاسال ليري مفاوضات كي حقا لو لقى لبيه إسرائيل وحي بلود القدس القسم الشرقي إنه مستعمرات جديدة كدسته وأن مركي هورد وح بعيد كاها شاب مفاوضات كي waxa kale lagu galay markaas ay United Nations yaraka qaato la yiri way yaraha hadleen muddo 5 sanadood isagoo aan baarqabka dunida ku doobiyaan oo erayga veto ay isticmaalin ayuu ku isticmaalay veto in arintan laga hadlo gabigeed 5 sanadood ka hor vetodii hore Maraykankuna nafs القضيه bay ku saabsanayd qadiyada Israa'iil ba ku saabsanayd nidaam العالم الجديد iyo sida uu dhigayo waxa idin kaga filan wasiir khaarijiyada Israa'iil ba khudbad jeediyay bal hada u fiirsada waxa waraysatay jariidad yahuud ay leedahay ayada jariidadooda la ilaa markaas wuxuu ka yaabay wasiir khaarijiyi wuxuu ka yaabay shooqan iyo maxabadan carabti qaaday iyo sida loogu soo kala dheeraynayo ka argagaxay dabeetana intuu hadlay buu Paris ba wuxuu leeyahay أخاف إذا ما استمر الحال على هذه الوتيرة السريعة أن يطالبون بالانضمام إلى الجامعة العربية بيري من مخاوفه بك متر لمن كان عربي بيقول حبك كان قاضي سيدان دقدقت أهدو الصعودة بيقول وحن كبق يا بيقول يمكن نقضى البضان إن الجامعة العربية كبيرة إسرائيل بك عب سنسة إن لا يدادو هوية دي يهود إنما طورة تيسك سوقالين الجامعة العربية بقاها مركو وزير الخارجية وقضاه أي الجامعة العربية كيها استناهض ليا عصمت عبد المجيد وحلي انت حفلتي كنت نادي اللي جوايي الى هيدا الجامعة العربية
ayuu kii haystay markaa dawaqsanya wuxuu leeyahy waxaan aad hal yacqal miyay wax maanka gasho tahay buu leeyahy inay meeshan jirta buu yihi musaalaxa ama heshiis carabiya israa'iil dhex mara oo jaamaca alcarabiya ay qaban kari weyda buu yihi musaalaxa carabiya isna taasuu ka yaaban yahy ninkan odaygina wuxuu ka yaaban yahay in yuhuudda lagu daro in carabta lagu daro waxaan leenahay laakiin nidaam alcaalam aljadiid waa maxay malaamixda ka muuqata ama simaadka ama calaamadaha lagu garanaya waa maxay waa nidaam imberyaaliya baynu leenahay ama waa qaab isticmaar oo cusub oo soo socda oo ka gadisan qaab isticmaarkii hore dunida aadka u soo maray laakiin waa maxay simaadka ama muuqaalada uu leeyahy waa simaad runtii aada u cajiiba waxaan leenahay awalan qaybta dhaqaale ee nidaam alcaalam aljadiid wuxuu u yaalaa kama gadisna qaabkii hore u yaalay dunida caalamka saddexaad ay u yaqaaniin inta badan ay ka tirsan yahay caalam alislaami dhammaantiin gaajo iyo faqri iyo dhaqaale xumo iyo waxbuu ka cabanayay laakiin markii hore waxaa maskaxdooda ka guuxaysa in isbedello la samayn karo khaasatan duwallo waaweyn oo cimlaaqo oo ku jira sida brazil iyo indiya iyo nigeria iyo venezuela iyo masr iyo sacuudiyada iyo runtii sarwaat waaweyn le waxay moodayeen mustaqbalka inuu wax isbedeli karaan laakiin waxay dhahdaan fi caalam aliqtisaadi aljadiid afkaartaasi talaashat ama tamaaman way baabaaday iyadoo uu maraya bay dhahaan cibciga dhaqaale ee saarani 1,300,000 ama 1,300 oo milyaar ama 1,300 oo bilyan oo dollar uu marayo culayska saarani bay leeyihin laakiin nidaamka cusub wuxuu isku dayayaa inuu sii cusleeyo qadiyadatan oo ah in caalamka saddexaad uu qasab ugu ogolaado caalamka horu maray munaafasa inay la galaan xor ah aswaaqdooda iyadoo aanay laba isu dheeli tiran aanay hayn la rabo inay qasab munaafasadaasi caalamka saddexaad uu ku galo oo natiijaduna ay tahay dee wax layska garanayo ilaa xad wadanada qaarkood ay gaadhsiisay kuwii maamulayay inay wadankii iyo dadkii iyo wixii bay iibiyaan markii bu'sigii iyo faqriguu sii tiro batay xataa kuwoodii dhaqaalaha lagu tilmaamayay sacuudiyada iyo meelahay sii marayaan waa wada muuqanaysaa waxaan leenahay duwalka reer galbeed duwalka faqiirkaa waxay dakhligooda ka siin jireen 0.35% boqolkiiba in ka yar boqolkiiba nus in ka yar yacni boqolkiiba xabad badhkeed in ka yar dakhliga wadanku uu leeyahay qoomiga ah waxay ka bixin jireen 0.35% bay yidhaahdeen waa qiimo gaadhaya bay yidhaahdeen ilaa 47 iyo badh ilaa 47.6 bilyan dollar buu gaadhayaa bay yidhahdeen laakiin waxaa duwalka caalamka saddexaad dib looga soo qaadi jiray intaa marka loo dhiibo badiilka laga heli jiray wuxuu gaadhi jiray bay yidhahdeen 108 bilyan oo dollar intana quruuda ama waxabaa loo dhiibaa inta dib looga qaataa waxay ahayd bay yidhaahdaan ilaa 108 bilyan oo dollar sanad kasta imika bay yidhaahdeen intii laga soo celinaya bay yidhahdeen sibay uga soo noqonaysa laakiin intii caalamu haaliska la siin jiray bay yidhahdeen waa in hoos loo dhigaa waayo dunidu markii hore waxay u qaybsanayd bay yidhaahdeen bari iyo galbeed markii dagaalka qaboobi socday imika bay yidhaahdeen istaraatiijiyada caalamiga waa in la bedelayo loo qaybiyaa waqooyi iyo koonfur marka waqooyi la leeyahay waa in lagu daraa markaa galbeedkii la yaqaanay duwalkii waaweynaaye reer bari ee shuuciyadda ka takhalusay waa in lagu soo daraa dhanka reer galbeedka musaacadaadkay reer galbeedku bixin jireena waxoogaagii gaadhi jiray caalamka saddexaad bay leeyihin waa in loo gudbiyaa maxay bariga kan lasoo kobcinayo maalan suuqa reer yurub ee ECD wixii la midi sanad kasta waxay u qadimaan $60 qof kasta oo Boolandiya iyo Chiika Majar iyo Poland qof kasta oo u dhasha waxay $60 lacag gaaraysa iyadoo waliba bay leeyihiin caalamka kan kuwa dhaqaalahooda hadda soo kabcaya duwalkaas iyagoo kamida baynaba ay yidhaahdeen
afrika waxay geeyaan oo dhamme uu yahay 10 kuwa kan 60 ayuu gaadhaya afrika waxay siiyaan oo dhammena 10 buu gaadhaya weliba bay leeyihiin mustaqbalka soo socda qaabka loola dhaqmayo caalamka thalithku qaabkii hore uu ka sii xumaanaya waxa loo qarinayaana way ka sii xoog badanaysaa caalamka thalithkuna faqriga waa lagu sii adkaynaya haddii cid kor loo soo qaadayo musaacadaadka galbeed gaadhayaana caalamka bariya walaaladooda bay gaadhsiinayaan sida daraaddeed dunida qismada cusub ee dhaqaale waxaa loo dhigayaa inay noqoto waqooyi iyo koonfur qaybta social life-ka ama thaqaafada ku saabsan ama waxaasi macnaheedu waxa weeyaan qiyamka iyo afkaarta ay rumaysan yihiin reer galbeedku waa in laga dhigaa qiyam iyo afkaar caalamiya oo waa maxay waagii hore reer galbeedku way dhoofin jireen afkaartooda laakiin waxay u dhoofin jireen ariiq ah sunta iyo malabka la ysku daray oo ah ariiqa iskuullada iyo waxbarashada iyo thaqaafaadka iyo dhankaasi bay ka dhoofin jireen laakiin iminka waa la bedelay bay leeyihin waxaa loo bedelay ariiq odhanaya hay-a al-umam almutaxida iyo qaraaraadka ka soo baxaya waa in lagu qasbaa caalamka saddexaad awal tawsiyaat buu ahaan jiray mu'tamaraadka mu'tamar sukaan iyo mu'tamar tanmiya iyo mu'tamar xuquuq al-insaan iyo mu'tamaraadka noocaasi caalamka hore way uga dhici jireen imka waa kuwii dhacay mu'tamar xuquuq al-insaankii u dambeeyay Vienna lagu qabtay mu'tamar tanmiya wa sukaan qaahira lagu qabtay mu'tamar tanmiya wa sukaan مثلا waxa laga waramayay liwaadka waa tanmiya sukaan ku tirsan liwaadka laga waramayay waxaas laga waramaya bal 300 oo qowmuluud ka tirsan baa la socday si ay mudaahara uga sameeyaan qaahira gudaheeda oo marka mu'tamarku ka tirsan tanmiyada iyo sukaanka ay leeyihiin qaraaraadka ka soo baxa lama rabo inay imka tawsiyaat noqdaan ee waxa la leeyahay marka hore waa qaraaraad dimuqraadiyada oo adeegaya saadaraadda duwalka caalamka thalith waa inay qaataan hadday qaadan waayaan waa loo hanjabaa cunaqabatayntii dhaqaalaha bilaabmaysa cunaqabatayntii siyaasiga ahayd baa bilaabmaysa waxa kan mararka qaarkoodna xoogga lagu deeyaa way barigii hore caalamka thalithku laba meelood oo yara dhaxaraaraabo haystay marna xagga shuuciyada loo yaro ordi jiray marna xagga kale waxba la dhaxaraarari jiray ama quwa mutacaadila xagga xoogaba ka jirto dunida isu yara dheeli tiris imka meel loo kala cararaya ma jirto bay leeyihiin sida daraadeed raqma al-anf imma daqdi siyaasi ama daqdi iqtisaadi haddii loo baahdana bay dhahaan daqdi caskari waa in lagu fuliyaa idan wuu isbedelay waxay leeyihiin caalamku tiknolojiya cusub buu galayo waagii hore tacliimkiiya waxaasay ahayde albath almubaashir waa inuu caalami noqdaa bay dhahdeen iminka oo waa maxay qiyamkii iyo afkaarta reer galbeedku haystaan can ariiqi daraasiya waxa waa inuu ka gaadhine bath mubaashira waa in lagu sameeyaa CNN kan iyo NBC gan iyo waxaan la sheegayaa waa dhaqankeenu dunida waa inuu toos u galaa raqma anfihim waa taqaanin dee Soomaaliya imka sida CNN ka looga daawadayo NBC yada iyo waxa kan oo ah dhaqankii reer galbeed oo la rabaa raqma anfikum in la idin geliyo oo qaabkan loo dhigo waxaan leenahay maanta haddii la rabo dhaqanka dunida in wax laga gadiyo مثلا waxay yidhaahdaan 14 milyan oo qof baa sanad kasta gaajo u dhinta bay yidhaahdeen xasba taqriirihim boqolkiiba 70 bay yidhaahdaan waa atfaal waa arqaamtay soo saartay al-umam al-muttaxida faqrigaasi bay yidhaahdeen weyna dhib gelinaya maxaa xal ah reer galbeedku muxuu xal u hayaa waayo waxay leeyihiin haddii faqrigu ku sii bataa caalamka thalithka tamarrudka badanaya fawdada badanaysa dee bay yidhaahdeen qasriga boqorka haddii dadka ku agnoole haddii goray aad u gaajodaan marun baa la isla soo jiiri doonaaye maxaa xala see looga ilaalinaya qasriga boqortooyada dadka gaajaysani inay soo galaan waayo cadad sukaan 40 dowladood bay yidhaahdaan oo caalamka thalith suuqa Awrubiya oo dhan sukaankoodu waa 300 milyan oo nismo 40 dowladood caalamka thalithka yaraba iskaga badan bay yidhaahdaan oo kuwa faqarada ah see loo galayaa bay leeyihiin dadka kan xal kale markay u waayeen waa kuwan is haysta xalalka dadka baday hayaan waxa muuqata caalamku bay leeyihiin idraab iyo fawda inay ka soo socoto waxa muuqata bay dhahay مثلا Afrika bataalada ama shaqalaantu 50% inay ka badantay iyadoo 50% ka badan bay leeyihiin waxa muuqata haddana
7,000 oo jaamici oo afrikaan inay haystaan caalamka horumaray waxay leeyihiin waxay iyagu investment ku sameeyeen inaga soo qaadanay mutacalimiintoodii dadkooda wax bareen inaga soo qaadanay iyagana faqriga iyo wixii baa looga yimi